bismillahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa waddanka t v oo aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aan idiin haynana waxaa ugu dooroon qorshaha xidhiidhka shabaab iyo xootiyiinta oo abuuray walaac caalami ah xasan shiikh oo ka hadlay wadahadalka la sheegay in ay u furmeen dowladda federaalka iyo kooxda shabaab dowladda federaalka oo shaacisay qodobkii fashiliyey wadahadalkii ay ankara kula gashay etoobiya qodobadaasi qodobo kale ayaad waddanka ku daawan doontaan taariikhduna waxay ku beegan tahay 2 julaay sannadda iminkana u diyaargarooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade sabscribe saar waddanka t v oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelinno haddii saaxiibadeenna nagu tixanna ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna cusub uga mid noqdaan laegtana ha naga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore saraakiil sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee dalka maraykanka ayaa sheegay in kooxda shabaab ee soomaaliya ee xiriir iskaashi ah la bilaabeen kooxda xuutiyiinta ee yeman si ay isugu dayaan in awooddooda ay ku ballaariyaan soomaaliya sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca maraykanka oo codsaday in aanan la magacaabin ayaa sheegay in shabaab ay la shaqeeyaan xuutiyiinta isagoona ku tilmaamay wax la yaab leh oo laga walaaco falanqeeyaasha ayaana sheegay in xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda iiraan ay doonayso in ay abuurto jiha cusub oo badweynta hindiya ah oo shabaab ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn haddaba xiriirka iyo iskaashiga la sheegaya in ay xuutiyiinta oo shiico ah doonayaan in ay la yeeshaan kooxda sunniga sheegata ee shabaab muxuu uga dhigan yahay soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka geeska afrika axmed kaboole oo falanqeeya arrimahani ammaanka ayaana arrintani uga warramay warbaahinta isagoona ku sugan dalka sweden waxa uuna sheegay in xiriirka shabaab iyo xuutiyiinta uu sii kordhinayo weerarada iyo beegsiga ay shabaab ka wadan gobolka shabaab waxa ay u baahan tahay hub casri ah xuutiyiinta waa ay haystaan sida diyuurada iyo gantaalaha halis ah oo iiraan iyo saaxiibadooda kale ay ka heleen hubka ay xuutiyiinta heli karaan haddii uu gacanta shabaab galo caqabad weyn ayay dowladda soomaaliya ku noqon kartaa ayuu yidhi sidoo kale falanqeeye axmed ayaana sheegay in shabaab ay xuduudaha dalka ka gudbi doonaan haddii ay helaan awooddan intan ka badan waxaa halis loogu jira in ay helaan hub casri ah oo ka fiican midka dowladdu haysato mar kasta oo ay awood yeeshaan culays weyn ayay soo kordhinaysaa ayuu hadalkiisa ku sii daray axmed inkastoo kooxahan ay kala yihiin shiico iyo sunni waxaa xidhiirkooda loo sabaynayaa inay shabaab ay aad u rabaan hub casri ah halka xuutiyiintuna ay danaynayaan inay awood u yeeshaan maamulka badweynta hindiya falanqeeye axmed kaboole ayaana dowladda soomaaliya u soo jeediyey in ay ka fekerto sidii ay uga hortagi lahayd xiriirka shabaab iyo xuutiyiinta in uu dhaqan galo iyadoona kaashanaysa caalamka sidoo kalena waxa uu ku taliyey in badaha soomaaliya laga difaaca shabaab si aysan hub ula soo degin arrinkaas laba dhinac baa saameyn ayuu ku leeyahay qayb wuxuu ku leeyahay waa marinada ganacsiga caalamka iyo badda ha noqoto iyo maraakiibta iskaga kala goosha taasoo keenaysa in ay maraakiibtii daahdo ina gaari weyso waqti loogu talagala suuqyada caalamka halkaas waa concernka strategic concern ay adduunyada qabta oo maraykanka iyo hay-adaha sheegaa dhanna waa dhankan degenaanshaha iyo nabadda soomaaliya haddii xuutiyiintii al-shabaab ay ku guulaystaan inay isfahmaan waxay jaanis u tahay al-shabaab laba meel inay uga faa'iidaystaan xiriirkaas mid waa midoo in ay baddii indian ocean inay dhibaato ka geysan karaan meeshaas iyo dhanka kaleeto oo ah in ay helaan hub taasoo marka kalifaysa in ay qaraxyadii inay kor usii qaadaan iyo oberashanadii ay soomaaliya ka fuli jireen si lamidana tababarada iyo intelligenciga ay xuutiyiintii al-shabaab ay iskaashadaan marka ammaanka soomaaliya saameynay ku yeelanaysaa iyo oberashanadii socday labadaas caqabadooda ugu waaweyn waxaa looga fakarayo xuutiyiinta inay gobolka kusoo kordhiso si gaar ah nabadgelyada soomaaliya ee saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa haddii arrinkan uu dhawoobo oo iskaashi ay bilaabaan labadan kooxood sida hadda kuu sheegay waxa weeye al-shabaab baahi waxay u qabtaa hub casri ah waxaa xuutiyiintu marka la fiiriyo technolojiyada waxay haystaan dronaris ay haystaan hub waxay haystaan ay ka heleen saaxiibadooda oo ama iiraan ha noqoto marka hubkaas haddii al-shabaab uu gacantooda galo caqabad ku noqonaysaa oberashanadii iyo dagaalkii dowladda soomaaliya ay ku rabtay inay al-shabaab deegaanada qaar uga qabsato waxayna kalif kartaa laftirkeedu inay helaan diyaaradahan ama
ha noqdeen midka diyaarada ha noqdeen hub casri ah oo ka fiican midka dowladdu haysato taasa marka ay saameyn ku yeelanaysaa markastoo al-shabaab ay awood yeeshaanna waxaa weeye culays ayaa soo kordhaya kaleetana waxay tahay sidadoodii gobolka in ay ku ifaafayso oo ay cross border ay ka gudbeen xuduuddii soomaaliya marka soomaaliyana caqabaday ku tahay geeska africa oo dhanna caqabaday ku tahay ilaa wadamada dariska ah awooddaha al-shabaab soo kordha xuutiyiinta sidaan la soconno waa shiico shabaabkana waa sunni oo markaa fiiriso aada isuguma dhoweyn marka maxaa keenay hadda in ay soo baxaan wararkan sheegaya inay iskaashi yeelanayaan iyagoo xoogag islaami ah haddana aada u kala fogaa maxay yihiin waxyaabaha isku soo dhaweynaya hadda waxaa moodaa xuutiyiintu waxaa hadda haddaan focusku u saaran yahay maraakiibta maaragtay westernka oo ay cadow ka dhigteen haddana duqeyn ayaa ku bilaabatay culays weyna saaran xuutiyiintu marka waxay rabaan inay culayskii iska soo wareejiyaan oo al-shabaabna ay ka fuliyaan dhibaatooyinna ka geystaan indian ocean marka meeshaas baahiya xuutiyiintu waxay u qabtaa in ay soomaaliya iyo dhibaato kale koox kala aasaasto halka al-shabaabna ay u qabaan baahida hubka ay u qabaan oo isleeyihiin haddii haddaad xuutiyiinta heshiis la gashaan waxaad helaysaan hub casriya oo aad kula dagaalantaan dowladda iyo aad kaga difaacdaan diyaaradaha duqaymaha iyo waxyaalo lamid a marka waxaad moodaa afkaarta iyo ideologiga waxaa ka weynaanaya aragtida ah danta maanta iyo baahida marka baahiday hormariyeen sidaa la socotana al-shabaab iyo marka ay howlgelayaan waxyaalaha ay samaynayaan badanaa ideology aragti ma celiso si kastoo ay ku sarbaagaray karaan kuna noolaan karaan sababta kooxdan oo koox xukun doona dalkana rabta inay dowladda kala wareegto ama ay soomaaliya xukun awooda ku qabsato marka qolo kasta oo caawinaysa alliancgaasna heshiis way la gelayaan ugu dambeyntii sidaan la soconno dowladda soomaaliya waxay muddo dheer dagaal kula jirtay kooxda al-shabaab iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka marka si ay uga hortagto isbahaysigan la sheegayo ama iskaashigan la sheegayo inuu dhex marayo xuutiyiinta iyo al-shabaab maxaa la gudboon inay ku dhaqaaqdo run ahaantii dowladda option kale ma haysato haddii aysan jirin wax wada hadal ah iyo xal kaleto oo lagu dhamayn karo dagaalada soomaaliya dowladda soomaaliya waxa la gudboon waxay tahay iyadoo kaashanaysa wadamada ama alliancekii ay kala dhexeeyey oo saaxiibadooda ama ha noqoto turkiga ama ha noqoto dowladihii kaleeto oo heshiisyada military la saxiixda in laga gaaro oo hadda inta aysan kordhicin wada shaqaynta al-shabaab iyo xuutiyiinta iyo daahaan barigaas oo dhan soomaaliya in laga gaaro operationadooda haddaba proactive la sameeyo oo operationna la sameeyo si loo yareeyo khataraha in al-shabaab ay ka fuliyaan howlgallo ka culus kuwii hore marka dowladda optionka keliya ay haysato waxa weeye inay si sigil istraatiijiyad ka yeelato si looga hortegi lahaa xariiradaas dhanka kaleeto waxaa ka mid oo kaleeto dhinac dhulka badda xiga maadaama soomaaliya ay furan tahay una sahlantaha al-shabaab inay hub kala soo degaan ama mid ganacsi ha noqoto ama mid kooxa u keenan ha noqotee inay badaha soomaaliya kala soo degaan marka in la adkeeyo oo operationadaasna la adkeeyo lagana hortago xiriirkaas inuu si qoto dheer al-shabaab iyo xuutiyiinta ay maro dowladdu hal kasta ay heli karto inay hortagto bisa u bannaan saas leeyahay waa tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey munaasabad lagu soo gunaanaday dabaaldegyadii toddobaadka xorriyadda ayaa ka hadlay waxaa ka jira wadahadalladii la sheegay in dowladda soomaaliya ay la furayso khawaaridda shabaab madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in aysan jirin haba yaraatee waxay dowladdu kala hadli karto kooxdani isagoona hoosta ka xariiqay in uusan jirin xal aan ahayn in kooxdaasi ay hubka dhigto oo dowladda ay isku dhiibto waa tahay kahor inta aynan khudbadda madaxweynaha u gudagelin qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo faahfaahin looga bixinayay wadahadalka la sheegay in soomaaliya iyo etoobiya u bilowday ayaa lagu sheegay in dowladda turkiga ay magaalada ankara ku casuuntay wafuud kala matalaysa soomaaliya iyo etoobiya si looga wada hadlo xiisadda taagan dowladda soomaaliya ayaana sheegtay in kulankani uu ahaa kii koowaad islamarkaana la soo gebagabeeyey waxaana lagu ballamay wareegga labaad oo wadahadal ah 2 Sebtembar inkasta oo aan la cadayn sida uu u dhacayo wadahadalka dambe maadaama la isku fahmi waayey midkani dowladda Soomaaliya ayaana si weyn uga mahad celisay dowladda Turkiga oo sida qoraalkani lagu sheegay kaalin wanaagsan ay ka qaadatay xasiloonida geeska Afrika saaxiibka ugu weyn ee Turkiga geeska Afrika ku leeyahay waxa lagu tilmaamaa
soomaaliya markii kulanka lagu kala tegey ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo ay garbihiisa taagan yihiin wasiirada dhiggiisa ah ee soomaaliya iyo etoobiya. wasiir hakan fedan ayaana sheegay in kulamadu ay sii socon doonaan dibna la isugu soo laaban doono 2 bisha Sebtembar ee sanadkan. etoobiya ayaana cadaadis kala kulantay caalamka tan iyo markii ay heshiis la siixatay Somaliland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaana abuurtay xiisad diblomaasiyadeed oo adag, taasi oo Etoobiyaanka ku kaliftay in ay raadiyaan dowlado wada hadashiya iyaga iyo Soomaaliya. iskuulaadka publica ee la dayactirayo ee la dhisayo ma iskuulki bas in la dhiso si ardada ugu badan oo Soomaaliyeed ay uga faa'iideysato habeen iyo maalinba ayaa dowladdu waxay wadaa mashruuc kale oo lagu korontaynayo iskuulaadkaas koronto lagu siinayo waa iskuulaadka ku yaalo dowlad goboleedyada dalka oo dhan hal mar lama wada gaaray laakiin mashruucaas uu bilaabanaya waxaana gaarayo iskuulaadkaas la dhisay koronto si maalintii markii dhalinyaro ku dhigato habeenkiina ay kuwa kale ugu dhiga karaan. dowladnimadu dadaalkeeda marka meeshaas uu marayaa walaalayaal aad iyo aad ayuu u socdaa in yaroo kooban haddii aan ka soo qaado. laakiin hadda ayaan horan ka dhawaajiyey adduunyadii ayaa noo qiraysa wanaagga iyo horumarka dowladnimada ee aan samaynayn. markaasaa wiilal yaryar oo Soomaaliyeed ay leeyihiin waa been waxba lama samayn. siyaasi yaroo taladu xoogaa ka qalloocatayna wuxuu leeyahay waa been waxba lama samayn. haddee muxuu ahay sadar muuqda su'aal ka dhana la yiri caalamku dowladnimada Soomaaliya caalamkuna lama dirirsanayna mana necbayn oo 30 sano oo duruufeysna waa nala joogay maalin uu naquudiyo maalin uu maxaan ku raad dhaqaalna siiyo maalin uu amniga nala sugo maalin uu maxaan ku yiraahdaa dhinac walba. waxa inta maanta aan helnay waxaan u heli weynaa waxay ahayd maqaamkii iyo meeshiina laga rabay ee lagu cabirkii miqyaaskii dowladnimada yaan horay u soo gaari weynay oo hadda aan gaarnay. iskama imaan marka ma dhahayno waxyaabahaasoo dhan deyn cafinta leh cunaqabataynta leh ku biirista East Africa leh UN Security Council kale UNAMID leh dhamaan ma dhahayno waa markii ugu horeysay. arrimahaas qaarkood 12 sano soo socdeen 12 sano hoggaano kala duwan ayaa dadka joogay mid meel dheer gaarsiiyay iyo mid in yar dhaqaajiyaba waa la soo wada dhaqaajinayay. sidaas ayaa dowladnimadu muhiim ay ugu tahay continuity-ga ama si socodka. haddii maalin walba sidii ninka beerta jara subax inta soo dheenta laantii kor u soo baxdaba gooya haddii talaabtii yaroon qaadno dowladnimada la jaro la ceebeeyo la xumeeyo macna la'aan laga dhigo waxaan macna lahayn laga dhigo waxa aan ku naaloonayna rabna inaan gaarno ma gaarin. sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed dalkooda ha ku kalsoonaadeen dadnimadoodana ha ku kalsoonaadeen dowladoodana ha ku kalsoonaadeen diintoodana ha ku kalsoonaadeen. intaas hadday ku kalsoonaadaan wax ka xumaa karaahi ma jiraan. dadku sugaan ha lagu yiraaho ama ma ha lagu yiraaho ama eraya lagu yiraaho wax doona ama brambur wixii doona ha lagu yiraahdo waxa fiican waa cabirnaa waa naqaana yayna noqonin kuwa waxasan kasa laakiin aan karin yayna noqonin wixii aan kasno inay fiican yihiin aan karno aan ku dhiirano aan hore u soconno. cabsi gelinta balaayaa dhacayso waa la kala daadana dalka kala tagayo ummadda inta ku hoogay reer hebel xagga ka boodayo xagga ka dhacaya ma jirto.
dalkuna ma dumayo wax dhacayana ma jira horaa u soconaynaa dowladnimadan kusii soconaynaa qaanuun iyo nidaam iyo dowladaan yeelanaynaa insha allah marka kuwa aan u bixinay kuwii yowmul qiyaamaha yayna nacabsi gelin cabsidu waa faktorka ama cunsurka ugu weyn oo guuldarrada keena ma soconaysid haddaa cabsatid inta haddaa u dhaqaaqda ama qarkaan ka dhacdaa inta haddaa u dhaqaaqda ama ukuntaan ku istaagtaa inta haddaa tiraahdid ma soconaysid soco waxbaad qaldaysaa qalad sii sax biri sax horey u sii soco haddaadan inaad wax qalado wax kaa qaldamaan aadan ogolaanin waxba ma sixi kartid ka fiirso si fiican u qorshayso ka fakar khibrad ciddii u leh la doono laakiin soco ha joogin meesha inaad meeshaada sii joog status quo waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa khiyaar la doorta ma aha soco waagu meel ha kugu sii baryo sidaas daraaddeed dowladnimadeenna waa socotaa way soo socotay laakiin hadda waa soo kortay tallaabadeenna waa sii dheeraanaysaa cunugu markuu yar yahay tallaabadiisa waa kufkufaa waa dhacdhaca waa yartahay soo maha laakiin muguu soo xoogeystaba tallaabadiisa waa sii dheeraanaysaa dowladnimadeenna waa saas tallaabadeeda waa sii dheeraanaysaa dadka waxaan leeyahay dowladnimada iyo dowlad dhisku waxa ay mudan yihiin ha la siiyo hana la yiraahdo noloshu cibaarooyin isku eg oo la isu soo qaatay leedahay cunuga yarka ah ee dhashay ee marba si ahay soo kore ee marka dambe soo gaaro meel uu isku dayo inuu socdo lagama yaabo inuu hore inta ka socdo hore ka ordo waa kufayaa waa dhacayaa waa laga yaabaa inuu daqar soo gaaro waxismo laakiin marka dambe waa socona markuu socdo marka dambe haddana waa orda haddii cunuga markuu waa xagga inta la istaajiya xagga loo istaagaa la yidhaha soo soco markaasaa hadduu dhacana la ammaanaa oo la yidhaha waa boode laakiin markuu dhaco haddaad tiraa uf nacaskiday waa dhacaye haddaad tirahdid kici maayo nacaskiday waa dhacaye yaan lagu dhihin oo u fadhinaa meesha kuwa marka dowladnimada waa hoogtay iyo waa burburtay iyo intaa laga dhacay iyo ummadii kala tegay iyo dalkii xagga ka burburaayo kuwa dhahayo waa cunugaa socod baradka ah oo nacaski waa dhacay day la yiri oo kala waayo warkooda 34 sanaan joognaa maalintii dowladdii dhexe ay naga burburtay ilaa maanta haddii aan kala tegi weynay oon kala guuri weynay oo xataa haddii aan dalka ka qaxnay meel kale aan degnay aan intaan isdoonano aan isku meel degayno meelaan kala aadaynahay ma jirto yaan nala cabsi gelinin meel la kala aadaya ma jirto tuulo loo noqonayaa ma jirto wax xumaanayaan ma jiraan maalin walba haybad iyo sharaf iyo karaamaan noo soo koray waxaan hubaa haddii ilaahay cimri nagu gaarsiiyo 2025 dabaaldega maanta aan dabaaldegnay mid ka weyn inaan dabaaldegi doono annagoo ka ciidan badan ka qalab badan ka dayaarada badan ka amni ballaaran ayaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inaan 2025 dabaaldegno waana u shaqaynaynaa sidii sidaas ay u dhici lahayd haddii alla yidhaah mar kale iyo mar kale dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 64aad ee ka soo wareegtay xorriyaddii soomaaliya iyo midnimadii soomaaliya dhammaan waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo ay joogaan kama tegi karo waqtigii waa dhammaaday laakiin kama tegi karo inaan wax ka iraado arrinka midnimada dadka waqooyiga Soomaaliya degan waxaan leeyahay walaalayaal
walaal aan Soomaali ahayn sideedaba ma qabtaan. walaalkiinu waa Soomaali meel kasta ha deganaadeen. walaal dowladnimo oo waqooyiga Soomaaliya marka laga yimaado inta soo hartay aan ahayn ma qabtaan. walaal dowladnimo Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya oo idinka soo jira. dadka koonfurta deganna taariikhiyan weligood ma muujinin mana ku dhaqmin kamana muuqan lagamana recordna looma hayo meel ay ku colaadiyeen ama ay ku nacab yihiin dadka waqooyiga degan ee walaalooda. dadka waqooyiga degan iyo dalka Soomaaliya oo dhan markuu burburayay nidaam dowladeed oo jiray ayaa sabab u ahaa. nidaamkaas dowladeed oo waxna qabtay waxna laakiin asalka waxa maxsuulka waxa oo la helay asal dalkii dowladii inay burburtay nidaamkaas sabab u ahaa. dad badan dhintay, hantiya baaba'day, dhulaa baaba'ay, sharaf iyo haybad iyo karaamo iyo qab ummadeed ayaa dhaawacmay, wax badan naga baay. waxaan rabaa halkan inaan ka xuso kacaankii berigii uu jiray inta aniga ila midoo soo gaartay ayaa xusuusan kartee. institutions hay-adaa jiray oo loogu talagalay dadka inay jiheeyaan oo ay ku jiheeyaan hal ra'yi, yacni aaraada kala duwan ayaa la diidanay. marka aad fiiriso oo ra'yiga dowladda ama qofkan mas-uulka ah oo wado oo kula qumanaan waayo oo aad damacdo inaad ra'yi barbar dhigato tiraahdo war sidan ma waa sidan, aaliyaad ayaa loo sameeyay lagugu aamusiyo. waa kacaandiid, waa dibu socod, waa daba dhilif, waa fara badan. sidaas daraaddeed qofkii ra'yigiis ma cabiri karo wuxuu sida haddaad ra'yigaaga cabirtid waa kacaandiid amaa lagu yiraa, waa afminshaar amaa lagu yiraa, waa daba dhilif amaa lagu yiraa, oo kuwa kelmadahaas qaarkood xabsi iyo ciqaab iyo mushkil ay dabada ku wateen haddii maxkamadaha qaarkood lagugu geeyo. marka qofku waa iska aamusaa shib. sidaas waxay sababtay الرأي والرأي الآخر إن لا يلون واي وحي سببتي بنام بربرن. رسولك عليه الصلاة والسلام يا انت تلك انا اللي ده لو يديني يا رسول الله وحي ميا مس رأي ومغو يرا كان كورن رأي لا دينع دغني markaasa waliba ra'yigi la dhinac dhigtayna oo aqbalay oo qaadanay annaga marka sidee u dhahnaa ra'yi lama barbar dhiga karo. ra'yiga nala barbar dhigayo aytan iyo xifaaltan iyo qaab darro iyo wax si xumeyn ma laakiin war sidaana ka fiican qofka inuu dhigo sidaan ma ogoli waa diiday hoog waaye macquul ma laakiin ra'yigan kana ka fiican ka maslaxa badan ka qarash yar ka deganaanshiya badan dadku isku keen hal yiraahdo. sidaas daraadeed ra'yigii labaad oo la diiday wuxuu ka mid ahay tiirarkii burburka noo keenay. burburkii markuu dhacay maxaa dhacay marka ka daro dibi dhal kelmado kale oo kuwii hore ka dhib badan oo marka qaarkood kelmado subanay xataa in la qalluuciyo waxa ka mid ah sulh. والصلح خير لكم سماهن صلح دي حتى إن كلمة وصلح كوان أنت اللي يرادو إن كل وصلح اللي يري مرمر قاقود قطر قلان أمر الدلبة يا الجاري يوحلا مده هذا أنا قفك إنه شبيرا ورسيدان سماه الدلك يدك كسان الله دامو هذا وديه تجو وصلح ومانيفست ومانيكوبيو يا الله وديه إنه أنت سيرا شبسكيرا إسكابس. sidaas daraadeed marka maxaa dhacay burburka dalka markuu yimid siyaasiyiinta ugu horeysay oo dalka soo siyaasadiisa ka hadashay waxay ahaan dadkii dawladii kacaanka ee burburtay ama siyaasiyiinka ahaa ama odayaal ka ahaa ama tala ku lahaa ideology-du iyo fikirkii marka dawladii kacaanka marna kama marnayn kamana maqnayn
waqooyiga marka koonfurta saasaa ka dhacday waa sulxi manifesto dadka in la shibiyo ay hadli waayaan oo madaafiic lagu garaaco ay ka hadli waayaan oo walaal kale oo Soomaaliyeed dhiigiisa la daadiyo ay ka hadli waayaan oo magaalada la dumiyo ay ka hadli waayaan iyay sababtay sidaas la mid ah walaalaha waqooyiga Soomaaliya ku nool Soomaaliya ka mid ah intaas u baayagana ku dhacday nidaam dawladeed ayaa waqooyiga Soomaaliya wax u dhimay dadka waqooyiga waxaa loo sheegay nidaam ma ahane koonfur ayaa idin baabi'isay haddii dadka loo sheego la yiraahdo war annaga nidaamkiyaa la dilay adigu waxaad aheeda la dhahaa qofka dhahayo madaxdii iyo mas'uuliyiintii joogtay ayaa la weydiinayaa adigu maxaad aheed soo nidaamkii ka mid ma ahayna la leeyahay si aan loo dhihin marka waa inuu leexiyaa baasha uu yiraahdaa meelahaasaana laga jiraa saraakiishii nidaamkii jiray dadka cadaadi jirtay oo dili jirtay oo ciqaabi jirtay oo waxay jirtay ayaa waqooyiga Soomaaliya madax ka noqday kuwii militariga ahay oo dadka maxaan waa qafaali jiray oo xuriyadda ka qaadi jiray qaarkood ayaa maxaan ku raadaan madax ka noqday waxaan rabaa marka caawa sanad guurada 64aad iyo burburkii 34 sano kadib walaalaha waqooyiga Soomaaliya degan ra'yul aakhir la imaada yaan leedku aamusinin koonfurow noo wadaa koonfurow aaday muqdisho aaday xaggow ka dhacay intuu yeelay yaan leedku aamusinin waa leedin aamusinayay ogaada xor waxa u tihiin madaxdana inaad question garaysaan aragtida iyo philosophiga dawladnimada ee ku wadana aad question garaysaan calool waxay ku bukootay laguma daaweeyo dalkaani wuxuu ku burburay iyo fikirka uu ku burburay iyo hogaankii iyo taladii uu ku burburay laguma daaweyn karo qodobkaasna wuxuu dambeeyaa warkii waddanka intaynu ka gaarayna warka iyaga xigana waxaan kaga tagaynaa guuliga gobanimo